السلام عليكم ونقول سلام عليكم وحوجا وحن كرر لقلنا مر لبعد حاجة فرسمة يا وحيابها أنكو وحيابها نقول تلقلين بان نقول صور دعية إن شاء الله وتانو ولا جاجين دونا كلك وحن إن أنكو جعلنا حي كسي ونو مارتي ورئيس حسارة الله هنا أبوان فرح waxa sidaba noo suurtagelin weyday muhiim waxaan doonaynaa maanta dadka inaan maqashino aan dadka aan dareensiino dhibaatada reer Jabuuti haysata inay hadii tolo arrimuhu sidii horaanin ay reer Jabuuti hadii tolo isku damqanayaan iyo bulshadu inay dadka lagu deedo waa dadka abwaaniinta dadka fanaaniinta inuu halka dhibaatana ka soo bilaamayso yaan arkaynaa qof fanaan abwaana oo walaalkii caawin karla walaalkii oo sheeganaya inuu bishaaro oo xaq u lahaa kuwa ka walaysay isaga haybahan loogu diiday waliba loo cadeysto lagu caawo oo hadal adag lagu yiri inay garab joogsan waayaan ay isagoo jawaab helin qoladii ku dacwoonay hortood ay ka hadlaan ay walaalkood xaga ku liqaan waa nasiib darro taana waxaan leenahay dadka maartay arinta dib uga joogsada dib uga laama wax mid ahaataa leeyahay wadanka inta le gabadha mardiya ma aha qof bishaaro loo waayo wax kale ma qabsan waa bishaaro inkastoo abaanintu ay wax inta ka maartay fanaaniintu arinta ka badan ay maartay ay u dhigmaan ay u qalmaan waan iska arkeenaaba waxa noogu filan ba qoos qarshile laakiin waxaan leenahay Djibouti inaad saawidin inaad maxmed aad tihiin sidan imika u soo muujinaysa inay socoto oo dadku aad horay ay maartay arrimaha u sii wadaan oo dareenkooga ay isla kala isku damqadaan yaana ku jecelahay anoo xagga jooga oo magaca Sinaan TV ku hadlay iyo magaca gaarkaba waxaan leeyahay gabadha Mardiya Saciid waan garab joognaa insha Allah reer Djibouti waxay talo u karayaan inay la soo xidhaan waan jecelahay annaguna wixii aan karna walaalaha walaashin inaan wax la qaban aad baan u jecelaan iyadana waxa leenahay waa kuwa dhibaato ku gaadhay waa lagu dulmiyay waxa ku dheer waliba qolnima maartay lagu shaqeyn lagu dulmiyo waxa geed ku waday waxa ku sideer walaalaha ay garab joogsan lahaa oo maanta adigii cadow ku noqday aad baan uga xunnahay laakiin waa wax waqti yar oo inay iska dhamaan waxaan doonaynaa reer Djibouti inaan isku dubnaano isku duunina wax yaa maartay wax lagu helaa fikirka iyo hadafka uu buuxinayay Sinaan TV waa arrimaha oo bulshadu inay isku soo dhawaato bulshadu inay afkaar wadaagto bulshadu inay runta isku sheegto bulshadu inay arrimaheega si fiican isku hagayso oo u sheekaysato weeyaan waa hadafka loo abuuray aan Sinaan TV aan ugu jeedno dadkoo dhan inay sinaan helaan in cadaalad la helo waa hadafka in runa laga sheego wixii jira oo qofna lagu deelqafin oo wax cadifadaya waxa maartay Sinaan TV ma qaadi karo sida waxaan jecelahay aan sheegaynaa Sinaan TV inuu imikahan af Soomaaliga aan ku bilownay laakiin qorshaha way noogu jiraan in af Canfariga af Soomaaliga af Carabiga in hadii tolay kuna asaaw kala barnaamijyo xagan aan kaga bixino diyaar baan nahay kulka insha Allah waa la kubci doonaa waan wala shaqeyn doonaa reer Djibouti insha Allah waxaan dalbaynaa qofkii fikir saliim wata qofkii inuu wax sheego doonaya waxaan jecelahay in la soo xiro Sinaan TV insha Allah waana ka xunaa cilada maanta nagu dhacday insha Allah waana xalil doonaa dib dambana insha Allah barnaamijyo kale oo xiiso waan isku iiban doonaa waxaan intaay maal niga tagayaa amaana Allah iyo is arag dambe oo xiiso leh iyo anagoo si fiican farsamada oo si fiican u soo hagaajinay insha Allah inta caf iyo baan naga dalbaynaa walaalahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi